haddaba arrimaha jawaabaha laga bixiya ayaa waxay ahayd duqeymihii ugu cuslaa oo Mareykanka uu ku qaaday gudaha wadanka Iran. Masar maalmihii la soo dhaafay laba markab ayaa ku ololaya meel ku dhow xeebaha ama dekedaha waaweyn ee wadankaasi. warka soo baxay hay'adda muqaabaraadka ee dalkaasi waxa lagu sheegay maraakiibtaasi inaanay cilad farsamo ahayn waxay u gubteen oo diyaaradda iswado drone ayaa ku dhacday. baaritaano ayaa socda, haddaba yaa loo malaynayaa ma Israa'iil ayaa maraakiibtaasi garaacaysay iyadoo ujeedadu ay ahayd in Mareykanka ay dagaalka ku sii riixdo Masarna colaadda lugaha loo geliyo. afayeenka ciidamada Ciraaq waa uu hadlay, waxa uu yiri tallaabo kale haddii wadankeena loo soo qaado sheekadu waxay isu bedelaysaa dagaalka inaan gali doono. ciidamada wadanka Iran waxba reeban maayaan. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in nidaamka Israa'iil uu yahay balada iyo baaska gobolka bariga dhexe fadhisa loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto haddii kale xaaladdu ay faraha ka baxayso. waxa muuqanaya ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran in ay sii balaarinayaan dagaalka. safiirka Mareykanka u fadhiya naatana waxa uu sheegay in Mareykanka uu si dhow eegayo wadamada ku bixinaya hubka siinta buu yiri dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Pentagonka iyo wasaaradda dagaalka ee Mareykankuna warbay soo saareen. golaha wasiirada ayaa Masarna kulan degdeg ah ay ka yeelanayaan xaalihii ugu dambeeyay. haddaba waxba la isku mareeban markaad eegto iyadoo Xuutiyiintuna ay leeyihiin waxaynu xiri doonaa dhaqaalana ka qaadi doonaa Babul Mandab ayaa xaalka gobolka bariga dhexe waxa uu yahay mid aan la arkin oo aan la maqal xaaladiisa sida ay hadda tahay. isqaabeyn cusub ayaa socota oo isbedelka adduunka ayaaba hadda moodaa inuu si degdeg ah gobolka bariga dhexe uga soo baxaya. haddaba mustaqbalka muxuu yahay? qodobadaas waynu eegi doonaa. waxaan sidoo kale idinla socodsiin doonaa qaar ka mid ah saaxiibadii ka soo aragtay dhiibtay muuqaalkii hore oo ku saabsanaa hadalkii Xuutiyiinta ku aadanaa inay marinkaasi xiri doonaan. laakiin su'aashu waxay tahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu yiri baaska iyo balaayada gobolka bariga dhexe haysata meel kale maaha oo cid kale loo baadi goobay maayo. ninkan Benjamin Netanyahu ayaa isaga balanbalinaya colaadan. haddaba marka la fiiriyo Erdogan waxa uu ka dhigan yahay ujeedadaasi inay dhab ka tahay mase waa un dagaalkii diblomaasiyadda ee hoose ee biyaha hoostooda ahaa. khiyaarta inala socota qodobadaas ayaan ku lafagurayaa barnaamijkan gaarka ah ee aan si toos ah ugu eegi doono xogii ugu dambeeya dagaalka iyo meesha ay wax marayaan. ha ilmaamina inaad magaciina hoos ku qortaan isla markaana aragtidaada aad nala wadaagto si aan muuqaalka dambe ula wadaagno. waxay u muuqanaysaa ninkii xoog leh reerka ha u haro. gobolka bariga dhaxana waxa uu muuqanayaa inuu dib isku qaabeynayo marka la fiiriyo xaaladda dagaalka iyo isbedelada waaweyn ee hadda ka taagan. Mareykanka oo shalay la kulmay weeraro lagu qaaday gudaha wadanka Jordan oo halkaasi saldhigyo uu ku lahaa ay duqeeyaan ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. xalay waxa uu duqeyn ku miray gudaha wadanka Iran isagoo tobaneeyo bartilmaameed fuliyay sida ay tilmaamayaan wararka kala duwan ee soo baxaya. Iranna jawaabo culus ayay bixisay oo gobolka waxa uu mar kale galay wareeg cusub oo dagaal taasoo dadka qaar ay ku tilmaamayaan in aan la aqoon mustaqbalka meesha uu cagta dhigi doono gobolkaasi cidda awoodiisa qaadan karaysa. haddii aan ku hormaro dhacdooyinkii weerarada iyo sida ay wax u dhaceen, taliska ciidamada Mareykanka ee CENTCOM la yiraahdo ayaa Khamiista ku dhawaaqay in uu dhammaystiray weerar ballaaran oo ka dhan ahaa Iran isagoo sheegay in ay jawaab u ahayd isku dayo gantaalo oo Iran Arbacadii ay ku beegsatay ciidamada Mareykanka. qoraal ay ku baahiyeen barta X ee hore loo oran jiray Twitter-ka ayaa waxa uu ku yiri bayaankooda ciidamada Mareykanka waxay duqeeyeen 10 goobood oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran oo ku yaala gudaha wadankaasi. goobaha la weeraray waxaa ka mid ah baa la yiri xarumaha taliska militariga, saldhigyada gantaalaha, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, goobaha kormeerka iyo difaaca xeebaha iyo xarumaha ciidamada badda ee wadanka Iran. qodobka saddexaad ee bayaanka lagu qoray waxa lagu tilmaamay Mareykanka waxa uu sheegay ujeedada weeraradu inay ahayd in la yareeyo qatarta Iran iyo xulafadeeda ay ku hayaan ciidamada Mareykanka, maraakiibta ganacsiga iyo dalalka Khaliijka. qodobka afraadna waxa lagu yiri CENTCOM waxay sidoo kale sheegtay in ka badan 50,000 oo askari oo Mareykan
in ay hadda heegan ku jiraan si ay dagaaladaasi Iiraan ka dhanka ah u sii abaabulaan. dhinaca kale warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in duqeynta Mareykanka lagu qaaday dhismo la degan yahay oo ku yaala jasiiradda Qasham ee marinbiyoodka Hormuz, halkaas oo ay ku dhinteen ilmo laba jir ah iyo waliba labadiisii waalid, halkaas oo ka dhigan in qoys dhan oo Iiraani ah xalay dagaaladii dhacay lagu waayay. weerarada ayaa calaamad u ah baa la yidhi dib u laabashada iska hormaadyo cusub oo gobolka bariga dhexe ka tirsan. ciidamada ilaalada kacaanku waxa ay si dhammaystiran sidoo kale ugu dhawaaqeen waa Iiraan in marinka Hormuz guud ahaantiiba uu xiran yahay oo uusan jirin markab halkaasi gooshi kara cidda isku hadlaysana iyada ay ka shalaayi doonto haddii markabkeeda la quusiyo ama miinooyin ay la kacaan baa lagu yidhi qoraalka. laba markab oo shidaal siday oo isku dayay in marinbiyoodkaasi ay ka gudbaan iyagoo taageero kale Mareykanka ayaa la wariyay. laba markabna dib ayay ugu laabteen kadib markii dab xoogan uu ka kacay mid ka mid ah maraakiibtaasi, taas oo ka dhigan ciidamada Iiraaniyiintu inay weerar xoog la ku qaadeen. maraakiibta waxay isku dayeen inay ka baxaan baa la yidhi wadadii ay Iiraan jihaysay, halkaas oo ciidamada Iiraaniyiintu ay sameeyeen in ay guud ahaantiiba burburiyaan sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga la yiraahdo Al-Azraq oo ku yaala gudaha wadanka Jordan, halkaas oo ciidamada Mareykanka ee gobolkaasi ay fadhiyaan. warar uu sii daayay telefishinka Al-Furaad ee laga leeyahay wadanka Ciraaqna waxa uu tilmaamayaa in ugu yaraan 3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku uu leeyahay ee saldhiggaasi yaalay lagu ololeeyay oo guud ahaantoodba dambaska looga dhigay halkaasi, sida dooda ay ciidamada telefishinkaasi ka sii daayeen ciidamada Iiraan lagu sheegay. qoraal kooban waxaa lagu yiri waxa maanta la bartilmaameedsaday saldhigga Al-Azraq ee wadanka Urdun. warkan oo ay sheegayso hay'adda ilaalada kacaanka ee loo yaqaan IRGC waa ciidamada ilaalada kacaanka ee qoraalkan ayaa loo diray baa la yiri kuma jiro wax xaqiijin faahfaahinaya oo ka yimid dowladda Urdun in tillaabooyinka dagaalku ay hadda gaareen meeshii ugu adkayd. waayahay ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan waxa ay qirteen in 3 ka mid ah saraakiishooda dagaalka halkaasi lagu dilay duqeymihii ugu dambeeyay xalay ciidamada Mareykanku ay fuliyeen. waa qasaarihii ugu horeeyay ciidamada Iiraan ay ku dhawaaqaan tan iyo markii wareegga cusub ee dagaalka dib loo bilaabay. ugu yaraan 3 ka mid ah ciidamada ayaa la dilay maanta oo Khamiis baa la yiri kadib weerar gantaala ah oo Mareykanka uu ku qaaday gobolka Sanjaan ee waqooyiga Iiraan. war-saxaafadeedka ciidamada ayaa lagu sheegay in 3 askari ay ku dhinteen weerarkaasi, hase haatee lama bixin xog kale oo dheeraada iyo waliba sida ay waxyeelada u soo gaartay. ciidamada ilaalada ama ciidamada Mareykanka ama aan iraahdo safiirka Mareykanka ee u fadhiya dalalka NATO ayaa waxa uu sheegay in dowladda Washington ay si dhow ula socoto wadamada isku dayaya buu yiri in ay hub gaarsiiyaan wadanka Iiraan, hase haatee taasi waxay hadda ka dambeeya aan loo dul qaadan doonin. dhawaqan kulul iyo waliba shanqarta rasaasta ayaa mar kale isla jaan qaaday gobolka bariga dhexe iyadoo dagaaladu ay noqonayaan kuwa sii cuslaanaya. horeysi uu siiyay telefishinka Fox News waxa uu ku sheegay Mareykanku waxa uu la socdaa isku day kasta oo Ruushka ama Shiinuhu ay ku gudbinayaan hub dowladda Iiraan gacantooda la gelinayo. waa eedayn iyo dhaleecayn cusub oo loo jeedinaya Moscow iyo waliba dowladda Beijing. dhinaca kale wargeyska The Washington Post ka soo baxa wadanka Mareykanka ayaa sheeko dheer ka qoray Pentagonka waxa uu ka wacday buu yiri shirkadaha tiknoolajiyada difaaca in dib loogu dhiso kaydkiisa hubka kadib markii uu si weyn u yaraadeen gantaalaha kadib dowladda Mareykanka xilli ay dagaalo weyn ku jirto la soo warinayo kaydadkii gantaalaha istiraatiijiga ahaa iyo kuwii difaaca iyo weerarka labadaba inay hoos u dhaceen, tan oo dad fara badan ay shaki gelinayaan awoodda dowladda Mareykanka haddii ay helaan dowlad ka baaxad weyn Iiraan kana cudud iyo ciidamo ballaaran sida wararkooda ay u dhigayaan. The Washington Post waxa uu leeyahay dhammaadka bisha June wasaaradda dagaalka ee Mareykanka
aan iraahdo xogayaheeda Bet Hexeth ayaa kulan la yeeshay baa la yiri in ka badan 12 shirkadood oo kamid ah kuwa ugu waaweyn ee tiknoolajiyada difaaca ee wadanka Mareykanka. kulankaasi waxa uu ku gudbiyay fariin degdeg ah oo ahayd Pentagon-ku waxa uu u baahan yahay caawintiina in si degdeg ah dib loogu buuxiyo kaydadka hubka. codsigan ayaa yimid xilli Mareykanka uu ku jiray dagaal uu la galay Iran kaas oo weyn baa la yiri u yareeyay kaydadka gantaalaha iyo difaaca labada dhinac waa gantaalaha weerarka iyo kuwa difaacaba. Hexeth waxa uu sidoo kale sheegay in shirkadaha iyo waliba door muhiim ah ay ka qaadan doonaan soo saaristaasi gantaalaha iyo diyaaradaha loo baahan yahay. kulankan horey looma shaacin faahfaahintiisa waxana uu muujinayaa isbedel weyn oo ku yimi warshadaha wax soo saarka difaaca ee wadankaasi Mareykanka uu leeyahay iyadoo dagaalku uu sababay isticmaalka ugu badan ee rasaasta hubka casriga iyo waliba dhibaatooyin dowladda Washington ay dareemayso hadda inay kala kulmayso dagaalada sii xoogaysanaya ee ka taagan gobolkaasi bariga dhexe. madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn u dhaleeceeyay nidaamka Israa'iil ee bariga dhexe fadhiya waxaana uu Benjamin Netanyahu nidaamkiisa uu ku eedeeyay in dambaaburada dagaalka iyo holaca ka taagan gobolkani ay sabab u tahay Tel Aviv oo nabad iyo nabad darraba arkaysa baa la yiri walwal iyo nolol darro. waxaana ay tilmaamaysaa dowladda Ankara in loo baahan yahay in indho dheeriya lagu eego tillaabooyinkan isagoo si gaar ah madaxweynaha dalka Mareykanka Erdogan ugu diray baa la yiri fariin uu doonayo Israa'iil in ay joojiso dabka iyo waliba dhibaatooyinka gobolka ay doonayso in ay ku sii fidiso. madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in dowladda ama nidaamka Israa'iil ay sii wado horinta colaadaha gobolka isla markaana dhammaan gobolka uu bixinayo qiimaha ka dhasha weerarada Israa'iil ee qaadayso. waxa uu yiri Israa'iil dagaalka ay ku tiirsan tahay waa inay sii wado gobolka waxay u jeedaysaa xasilooni darro qalalaase waxaana guud ahaan gobolka ay ku bixinaysaa qiimaha gardarrada iyo weerarada taas oo Ankara aysan u dulqaadan doonin ayaa lagu yiri warka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sii daayay goor dhaweyd. golaha wasiirada ee wadanka Masar ayaa waxa ay kulan degdeg ah ka yeesheen warar ka soo baxaya dekada Damietta halkaasi oo la sheegay laba markab in ay maalmihii ugu dambeysay ku holcayeen. dowladda iyo waliba hay'adda mukhaabaraadka oo baaritaano dheeriya sameynaya waxaa soo baxay maraakiibtaasi shil caadi ah oo dabiici ah in aanay waxba ku noqon hase haatee ay jiraan weeraro diyaarada iswada oo lagu qaaday isla markaana loo baahan yahay dowladda Masar in ay baaritaankeeda kor u sii qaadayso sida warkaasi lagu sheegay. tan waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa ciidamada wadanka Masar iyo istaraatiijiyadda cusub ay sameynayaan ee walaac ka muujinaysa nidaamka Israa'iil gobolka bariga dhexana aad looga baqaya dagaaladu in ay ku sii baahaan. golaha wasiirada ee wadanka Masar ayaa Khamiista maanta ku dhawaaqay in baaritaano hordhaca ay muujinayaan in dab uu ka kacay laba markab oo ku sugnaa dekada Damietta oo uu ka dhashay weerar lagu beegsado diyaarad aan duuliye lahayn. golaha waxay sheegeen baaritaankii ugu horeeyay waxa ay tilmaamayaan in labada markab la bartilmaameedsaday taas oo sababtay dabka. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda weerarka. baaritaano dhacdada ayaa wali soconaya xilli ciidamada wadankaasi Masarna ay si weyn u sameynayaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh. haddii aan eego isla wararka gobolkaasi bariga dhexe khiyaarta ay nala socotay ka imanaya dowladda Ciraaq ayaa ku dhawaaqday in aysan u dulqaadan doonin adyadka iyo gardarrada ka imanaya dalalka weerarka ku qaadaya wadankaasi iyagoo tilmaamaya in daandaansiga kooxaha Ciraaqiyiintu ay ahayd in ay weerareen ceelasha shidaalka ee ku yaala wadankaasi Sacuudiga gaar ahaan gobolada bariga dhaca. hase haatee waxa ay leeyihiin dowladda Ciraaq taliskeeda militarigu in arrimahaasi ay yihiin gardarro lagu banaysanayo dhiigga dadka iyo weerarka gobonnimada ee qaranka wadankaasi Ciraaq. taliyaha ama afayeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadanka Ciraaq Sabax al-Nucmaan ayaa wakaaladda wararka ee Ciraaq u sheegay in weerarkii ay ku qaadeen Sacuudiga iyo Mareykanka gudaha wadanka Ciraaq uu yahay mid gardarro leh oo dowladdaasi Baghdad aysan aqbali karayn.
waxau yiri ma jiraan wax cadayna oo muujinaya in weerar laga qaaday gudaha dhulka Ciraaq dowladda Ciraaq ma ogolaan doonto wax tallaabooyin ah oo falal gaar ah oo gudaha dalka laga sameeyo sidoo kalena ma aqbali doonto wax kasta oo xadgudub ah oo ka yimaada dibadda hay'adaha ammaanka ayaa hadda diyaarinaya qorshe amni oo dhameystiran si looga hortago weerarada noocan oo kala ah sida loo ilaaliyo baa la yiri madax banaanida iyo amniga qaranka wadankaas Ciraaq ciidamada ammaanka ayaa si rasmi ah mas'uuliyadda isaga saaraya sugidda amniga dalka mana jiri doonto wax huba oo gacanta dowladda iyo hay'adaha kale gali karaya sida ka muuqanaysa war-saxaafadeedkan ay sii daayeen goordhow mas'uuliyiinta wadankaasi Ciraaq dowladaha carabta inta badan sida Sacuudiga Bahrain Kuwait iyo sidoo kale dalalka uu ka mid yahay boqortooyada Qatar iyo Imaaraadka ayaa si wada jir ah u cambaareeyay weerarka lagu qaaday taliska masaldhigga Al-Asraq loo yaqaano ee gudaha wadankaasi ku yaala Jordan halkaas oo ciidamada Mareykanka lagu weeraray isla markaana hadda uu soo baxayo qasaaro weyn in uu soo gaaray dowladdaasi akhirtayna la socotay haddii aan eego qaar ka mid ah saaxiibada aragtidooda ka soo dhiibtay muuqaalkii hore aynu baahinay waxa ay muujinayaan warar aad xasaasi u ah in ay aragtidooda ay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah saaxiibada oo su'aasha aan weydiinay ahayd dhaqdhaqaaqa kooxda Xuutiga ay bilaabeen sida uu muuqan karo dawladaha ugu horeeya waxa uu leeyahay assalaamu calaykum barrow show waa Xuseen Faarax Geedi waxaan joogaa DDS waa dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City waxaan leeyahay buu yiri aragtidan waxay ila tahay kooxda Xuutigu hadafka lacag qaadida may ka joogaan waa inta uu caalamka si kale loo arko oo dagaal ballaadhan lagu qaado marka waxa uu leeyahay lacagta ay qaadayaan waxay la tahay inay iska joojiyaan Ali Abukar oo jooga Burco oo Somaliland ama gobolka Togdheer wuxuu leeyahay Xuutigu uma suuroobayso inay sida Iran yeesho inkastoo ay caawinayso buu yiri dalka Iran oo kala maaha ayuu leeyahay oo Hormuz adduunka ku ciqaabtay laakiin Xuutiga awoodda dowladda Iran male sababteedana waxay u muuqataa inaysan ahayn mid la aqoonsan yahay dawladan kale waxa uu leeyahay waa Cabdiraxmaan oo jooga Ethiopia waxa guuleysanaya buu leeyahay Iran iyo xulifadeeda Mareykanka iyo Sacuudiguna way isdhiibi doonaan insha Allah aad u maasanyihiin saaxiibada aragtidaasi nala wadaagay saaxiibada kale si aan aragtidooda u baahinana waxay nala wadaagi karaan Erdogan waxaad u jeedaan si carale ayuu saaka u hadlay isagoo tilmaamaya in gobolka bariga dhexe dhibaatooyinka ka taagan baa yihiin nidaamka Israel oo qoray dab leh la wareegaya oo doonaya meel walba inay ku qabtaan haddaba Erdogan hadalkiisa ma dhaba mise waa hadalladii u muuqanayay kala aragti doonaanshiyaha isaga iyo Israel maxaa sadiidaya Ankara in mowqif cad ay ka qaadato dagaalada hadda ka taagan gobolkan oo ay dhinac cuslayso maadaama Israel ay la dagaalamayso Mareykankana ay saaxiib la tahay haddana wararkan aad moodo dagaalka inay aad uga baaqsanayso iyadoo haysata tiknoolajiyada dagaalka hubka ugu badan iyo waliba ciidamada ugu tirada badan NATO marka laga yimaado kuwa Mareykanka